بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ay taariikhdu tahay 25 bisha shanaad 2017 halkan waxaan ka sheegayaa inaan ilaahay u mahadnaqayo oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan xorriyadeedii dib aan u helay. shirkan jaraa'id waxaan kaga faa'iideysanayaa inaan ugu horeyn u mahadceliyo Allah ilaahay suura geliyay inaan xorriyadeeda helo. sidoo kale muxuu ahaayay mahadcelinta waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo oo ii fidiyay cafis. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaan cid kastoo ay garab istaagtay meeshay doonto ha joogto har iyo habeen ku fakaraysay sidaan xorriyadeeda u heli lahaa. yani ma soo koobi karo runtii dadyowga yani mana magacaabi karo iminka munaasabad kale iyo waqti kale insha Allah ayaan faahfaahin ku bixin doonaa. waxaan doonayaa oo kale halkan inaan ka sheego yani kulli waxaad isweydiinaysaan oo dee kulli warbaahin baa tiino meelaha aad isweydiinaysaan iyo maxkamaddii iyo siday ahayd iyo arrimahaas laga yaabaa inaad isweydiisaan yani idinku filan inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin garsoorihii xukumay iyo gudoomiyaha maxkamadda sare hadaladoodii siday u kala duwanaayeen iyo siday isaga hor imanayeen. garsoorihii xukunka igu riday iyo wixii laygu soo eedeeyay waxay ahaayeen iyo kadib wuxuu yidhi gudoomiyaha maxkamadda sare markii ay warbaahintu ku wareysatay London hadalladaas ay u kala duwanaayeen ayaa muxuu ahaa idinku filan halka inaan cadaalad helay iyo inaanan cadaalad helin. waxaan halkan doonayaa inaan ka cadeeyo xaadithata al-ifk waxyaaba muxuu ahaa hanfara oo muxuu ahaa yani muxuu ahaa la qaada dhigay oo in badan muxuu ahaa la hadal hayay oo la yiraahdo Cabdimaalik wuxuu ka soo horjeedaa Soomaaliland. Cabdimaalik qarannimadu muxuu ahaa duulaan ku yahay. waxaan doonayaa halkan aan ka cadeeyo Cabdimaalik kama soo horjeedo Soomaaliland iska daa inaan ka soo horjeedo Soomaaliland laakiin cadowga Soomaaliland baan ka soo horjeedaa. yani inay wax noqoto ay horumar gaadho ayaan doonaynaa. wixii ku duulaana inaan bayaamino aan farta ku fiiqno aan dhahno waxa weeye kaas ayaa ah cadow Soomaaliland. marka waxaan doonaynaa inaan baabino cadowga wahmiga ee la sameeyay aan waxba kama jiraanka ah la yidhi muxuu ahaayay waxa weeye Soomaaliya ayaa isu cadowga. runtii fariintaydu waxay ahayd mar kastaba dadka Soomaalida ahi inay walaal yihiin. waa meesha runtii keenta badanaaba yani la isweydiiyo Cabdimaalik Soomaaliland buu ka soo horjeedaa. macnaheedu ma aha haddaan idhaahdo Soomaali waa walaalo inaan ka soo horjeedo Soomaaliland. markaan leeyahay Soomaali waa walaalo waxaan ka hadlayaa Soomaali meel kastoo ay degto Djibouti yani Kenya Ethiopia Somaliland Muqdisho meeshay doonto ha degto Soomaali laakiin waa walaalo. yani kama hadlayno arrimihii muxuu ahaa siyaasadaha. marka waxa weeye arrinka walaalaynta Soomaalida inay walaalo yihiin fariinta jacaylka Ilaahayna in amrayo oo ina leeyahay inamal mu'miniina ukhwa ayaa runtii si khaldan looga faa'iideystay oo dadka la fahansiiyay oo dadka muxuu ahaa si khaldan loogu sheego leeyahay Cabdimaalik oo ka soo horjeeda Soomaaliland kamana soo horjeeda Soomaaliland garabkeeda ayaan ahay. waxaan doonayaa runtii halkan inaan muxuu ahaa iyadana ka iftiimiyo yani haddaan anigu maadaama aan maanta xorriyadeedii helay oo alxamdulillah aan dabadda taaganahay waxaan doonayaa inaan u sheego madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kastoo ay khusayso cadaaladda oo dulmigana necab. waxaan u sheegayaa inay jiraan xabsigaan ka soo baxay dad ay ku muddo dhaaftay muddadii xabsiga qaar ay muddo 6 sano ay dhaaftay intay xidhnaayeen oo uu ka dhamaaday oo aan la sii dayn. runtii arrinkaasaan doonayaa in muxuu ahaa diiradda la saaro oo muxuu ahaa dadkaas dulman ee dhibaataysan iyaga awgood roobku inoogu dii waayay in laga soo daayo ooda laga qaado oo jeelka laga soo daayo. dad badan oo dhibaataysan baa jira waxa laga yaabaa in aanay bulshadu ka warqabin. runtii anigu muxuu ahaa dad halkaas aan ku soo arkay dhibaataysan oo muddadii ay dhaaftay. insha Allah cadaaladda iyo muxuu ahaa meelaha aan soo maray ilaa booliska ilaa xeer ilaalinta ilaa maxkamadda ilaa jeelka wixii aan soo arkay inaan cadaalad meelaha ku soo arkay inaan ku soo arag mar labaad baan muxuu ahaa shir jaraa'id oo kale oo faahfaahsan aan ka qaban doona.